wadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno xaaladda nabadeed ee galbeedka gobolka Mudug. adduunyaduna ay jeceshahay inay nabadu macaan tahay adduunyaduna ay jeceshahay umiyuna ku nool yahay ila dhowrawa jibaytahay umiyuna waxay uga qayb qaateen si dadaal ah oo aan la fili karin way uga qayb qaateen haddana iyadoo si xadiis ayuu wuxuu ku yiri wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la marka koobaad saxaabada dhiigooda qaaliga ah u badbaada marka labaadeen waxay ka badbaadeen tacdiyo badan ay ka badbaadeen galbeedka gobolka Mudug oo muddo dheer la dhacay colaado sokeeye oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha bulshada colaadaasi oo muddo dheer u dhaxaysay beelaha walaalaha ah ee Sacad iyo Leelkase ayaa saameyn weyn ku yeeshay deegaano ka tirsan galbeedka gobolka Mudug dadaallada nabadeed oo iska kaashadeen maamuladii kala dambeeyay cuqaasha dhaqanka bulshada iyo hay'adda CBD oo kaashanaysa dowlad goboleedka Galmudug ayaa horseeday in xal laga gaaro inta badan colaadahaasi qaar ka mid ah bulshada degmada Bandiirley oo aan waraysi la yeelanay ayaa si weyn u soo dhaweeyay dib u soo kabashada nabadda iyagoona xusay muhiimadda ay nabaddu u leedahay wada noolaanshaha iyo horumarka deegaanka gaaray inaan dhiig naga daadan oo ilaahay nagu guuleeyay waxay uga qayb qaateen si dadaal ah oo aan la fili karin way uga qayb qaateen haddana iyadoo si mugla inay uga qayb qaataan baa la rabaa bulshada waxaa ugu baaqayaa nabadgelyada in lagu aruuro oo loo feljignaado oo aan dhiig muslin daadan oo laysu soo dhaweeyo la wada daaqsado dalka la wada dego qofba meeshuu gurigu rabo tago oo dadku waa walaal waa islaam ninba qof buu dhalay inaan dadkaas muslimkaa wada dhashay aysan dhibaato aan laga wadaano waxay ka heleen marka koobaad dhiigooda qaaliga ah u badbaada marka labaad caaqaradooda lama huraanka ah u badbaada dhac iyo dil bay ka baaqsadaan marka saddexaad xorriyad bay ku daaqsadaan oo ku daaqaan iyo nabad iyo nin kasta gurigiisuu seexdaa maalkiisuu dhaqdaa xorriyad oo wax ku dhaqda ayuu leeyahay xorriyad nabad ka weyn ma jidho ama ka horeysa waxay u fududaysay markii nabadu ay jidho dadka dariska ah beelaha oo daawun ka dhaxeeyo ninku hadduu gurigiisa ka tago meeshii uu dan ka aado ayuu xorriyad u aadaa marka sidaasoo kale ayay matashaa dadku markii deegaankan uu abaaroobo deegaanka kale oo xiga markay nabadu ka dhaxayso ayuu la daaqaa la degaa biyaha la cabaa baadka la cunaa doogii kula soo baxaa jidaalka kula soo baxaa subaxa dambena gurigiisa u soo guura asagoo nabada waxay ugu diirsadeen laba calaamadood horta dhiiggii daadanaya wuu joogsaday oo xabadii way qabowday dadkiina waxay heleen wacyigelin oo waxaa leeyahay macnaha hay'adda CDB iyo wasaaradda arrimaha gudaha ruuxooda waxay ka qaateen door weyn ka qaatay waxay ka helaan wax badan bay ka helaan waayo ninkeedu waa u badbaaday walaalkeeda u badbaaday wiilkeedu waa u badbaaday abtigii xagga oo ninkeedu hadduu xag ka soo jeedo hadduu xaggan ka soo jeedo waa isla meeshii inta waa u badbaadaya kufsi ka badbaadeen waxay ka badbaadeen tacdiyo badan ay ka badbaadeen tacdiyo badan oo haweenka oo maartay colaadaha u dheeri yihiin sida kufsiga tacdiyada waad aragtay waxaa arkaysaa islaamo waaweyn oo shaybaba ayadoo uleynhayo oo dharkii inta laga dhigayo halkaa la dhoobay dharka waa maamooyin waaweyn oo maartay la garaacayo marka waxyaalahaas dhan bay ka badbaadeen nabadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ku yiri fattaqullaha wa aslixuu daata baynikum wa adiicu llaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin in badan ayuu qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadda iyo islaaxa mu'miniinta dhexdooda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlay qur-aankiisa kariimka cid kastana ay ogtahay la garanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fattaqullaha ilaahay ka cabsada dadow wa aslixuu daata baynikum arrinka dhexdiinaana hagaajista inay dadku hagaajistaan umuurtooda nabadda iyo cadaaladda iyo sinaanta iyo wanaagga iyo wada dhaqanka ay ka shaqeeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu farayaa diinka islaamkuna uu farayaa
aayad kale sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacalakum turxamuun wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan oo muttafaq ah laysa alkadaabu alladii yuslixu bayna annaas beenaaluhu ma ahan midka dadka heshiisiiya fayanmi khayran oo yaquulu khayran markaasuu khayr ridahayaa ama khayr ayuu soo guurinayaa ama khayr ayuu oranayaa qofkaas beenaalo ma ahan dadka kale beenta loo qabamay haddaa wax heshiisinaysid xataa warguu ogolyahay ka looga baahan yahay sida nabaddu usii jirto alcadlu inay cadaalad la helo nabaddu cadaalad bay ka dhaltaa markii cadaalad la helo ayay nabad timaadaa cadaalad waa in la helaa Muhammad calayhi salaatu wasalaam xadiis ayuu wuxuu ku yidhi wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'min saxaabadii nebiga ayaa weydiiyeen oo yidhi waayo cidda aan rumayn nebi allo wallaahi laa yu'min ilaahay baan ku dhaartay iimaan ma lahu yidhi waayo markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa weeye man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa waa qofka dariskiisu aysan shidooyinkiisa iyo dhibkiisa aysan aaminka ka ahayn marka darisnimada Soomaaliya waa nasab waa si kasta bay nasab bay baa ka wada dhaxeeya radaac baa ka wada dhaxeeya nikaax baa ka wada dhaxeeya darisnimo ka wada dhaxaysa diinka ka wada dhaxeeya intaba in la isku xurmeeyo galbeedka gobolka mudug ka hergashay waxaan oga dhigan tahay arrin aad u weyn ayaantii u dambeysay colaadihii ka taagnaa galbeedka gobolka mudug aad bay dhalinyarada u saameeyeen iyadoo dad wax magarataa ay dabka ku shubahayeen oo mar walba ay kicinayaan dhalinyarada oo ay lahaayeen tolbeele soo baxa marka dhalinyaro aad iyo aad u badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ba halkaas lagu halaagay gabagabadii dadaalan nabadeed ee laga sameeyay galbeedka gobolka mudug ayaa muujiyay in wada hadalka isu tanaasulka iyo iskaashiga bulshadu ay yihiin furaha lagu soo afjari karo colaadaha dabada dheeraaday